wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda shaqo ee ku aadan u adeegidda ummadda Soomaaliyeed ayaa waxaa sharaf iyo farxad weyn u ah in maanta oo ku beegan talaado 23 Luulyo 2019 in ay soo bandhigto natiijada imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 12aad ee sanad dugsiyeedka 2018-2019 waxaa imtixaanka la qaaday 27 ilaa 31 bishii Maajo ee 2019 isla markaana lagu galay 106 xarumood oo ku kala yaala gobolada dalka waxaa guud ahaan sanadkan imtixaanka u fariistay 29434 arday oo natiijadooda celceliska ahaan hoos ku xusan halka 10ka arday ee ugu sareysay guud ahaan imtixaanka magacyadooda iyo natiijadooda ay tahay sida soo socota sida aan sheegnay imtixaanka waxa uu fariistay 29434 waxaa gudubtay imtixaanka 22499 oo u dhiganta 77%. waxaa haray oo aan gudbin tiro dhan 6937 oo u dhiganta 23%. wiilasha imtixaanka galay waxay tiradooda ahaa 18584 wiilasha gudbay imtixaanka ee guuleystay waxay tiradoodu dhan tahay 14337 oo u dhiganta 75%. tirada wiilasha ee aan gudbin waxay dhan tahay tiradoodu 4247 oo u dhiganta 25%. tirada gabdhaha guud ahaan galay imtixaanka waa 10850 inta gudubtay waa 8162 inta aan gudbin waa 2688 oo u dhiganta 25%. inta gudubtayna waxay u dhigantaa 75%. magacyada ardayda ugu sareysay 10ka ugu sareysay iyo dugsiyada ay ka socdaan in natiijada heleen waxay u qormaysaa sidan soo socota luqmaan maxamed nuur maxamed oo ka soo baxay dugsiga alfajar wuxuu helay 95.43 labo sowda cabduqaadir cali mire oo ka soo baxday dugsiga macalin aadow waxay heshay 95% celceliska. saddex cabdirasaaq cismaan cabdiraxmaan wuxuu ka soo baxay moonlight heliwaa wuxuu helay 94.5. afar maxamed xasan cabdi maxamuud wuxuu ka soo baxay iskoolka magaciisa la yiraahdo iftin warta nabadda wuxuu helay 94.21. shan cadnaan maxamed ibraahim nuur wuxuu ka qalin jebiyey dugsiga maamuur hodan wuxuu helay 94.14. lix shamsudiin maxamed cali yuusuf wuxuu ka qalin jebiyey dugsiga SYL caymiska wuxuu helay
94.7 تضبط عبد الرحيم علي قاسم عبد الله وحكى الجبي الدكسي قصاص وحو هلي 94 سداد عبدي أبوكر محمد يحيى وحكى الجبي الدكسي معلم أدو وعلي 93.9 سقال عبد الفتاح عبد الله حاشي وحكى الجبي عمر الفاروق عدادو وحو هلي 93.8 أرضك الطمانات وعيسى عبد القادر عبد الرحمن وحكى الجبي دكسيغا نيلين وكيا لورت النبضة وحو هلي 93.6
haddaba waxaa lagu wargelinayaa dhammaan ardayda imtixaanka sanad dugsiyeedka 2018-2019 u fariistay inay natiijadooda ka fiiriyaan mareegtada www.sonneb waa SONEB.gov oo u qormayso gov.so. waxaad ka fiirsan doontaa shaashadda aan hadda idin hor taallo iyadoo muddo ku qoraanayso si aad u guursataan. halka qof kasta oo natiijada roll numberkiisa si uu u arko natiijada gaarka ah. macnaheedu waxa waaye markaa website-kaas gashid waxaa arki doontaa meel ku warsanayso inaad roll numberkaaga gelisid. markaa gelisidna natiijadaadaad helaysaa insha allah. wasaaradda waxay u mahad celinaysaa dhammaan intii gacan ka geysatay taabagelinta imtixaanka oo ay ugu horeeyaan madaxda iyo howlwadeennada wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo heer dowlad goboleedba, hay-adaha amniga, macallimiinta iyo bahda waxbarashada dhammaantood. wabilaahi towfiiq. meeshaas ayaa war saxaafadeedkeen uu ku dhan yahay. waa mahadsantii. waayahay wasiir, inta aanan su-aalaha guda gelin waxaan daawadayaasha kusii adkeynaynaa fariinta wasiirka ahayd in website-ka wasaaradda waxbarashada oo shaashadda idinkaga muuqda oo haddaba shaashadda aad toos uga jeedaan inaad halkaas ka qorataan, ardayguna uu galo halkaas kadib serial numberkiisa uu geliyo uuna natiijadiisa ka heli doono. sidoo kale website-yada dowladda ee warbaahinta qaranka sida Sona iyo Radio Muqdisho.net ayaad iyaguna ka heli kartaan oo aad halkaas idinkugu soo bandhigi doonaa. wasiir, markaa natiijada intaa kaga nimaano ardayda kaalimaha hore ee galay dowladda sida looga bartayba deeqo waxbarasho ayaa lagu abaalmarin jiray. arrintaas haddii ay tahay qorshe hadda idin yaalla iyo haddii wax laga bedelayba bal inaad warbixin naga siisa ayaan jeclaan lahayn. aad iyo aad 10ka arday runtii magacyadooda halkan laga yeeriyey war saxaafadeedka kusoo dhex baxay waa ardayda wasaaradda waxbarashada ay u aqoonsatay inay yihiin 10kii arday ee sanad dugsiyeedkan 2018-2019 ardadii ugu dhibcaha badneed. sida dhaqanka wasaaraddu ahaa 10kaas ardadood waxay heli doonaan waxbarashada ay rabaan oo bilaash u noqon doonto, hadday tahay waddanka gudihiisa iyo hadday tahay waddanka dibaddiisa. 10kaas arday minxooyinka ama scholarshipska ugu wanaagsan oo iyagu doortaan ayay helayaan insha allah. waaya wasiir, waxaa jirta imtixaanka midaysan ee sanadkan in mar lagu celiyey kadib markii qish inuu soo baxay la ogaaday buuq badan arrintaas uu ka dhashay. maxaa laga baran karaa ka wasiir ahaan iyo ka wasaarad ahaanba wixii sanadkan dhacay? runtii wax badanaa laga baran karaa. in imtixaan uu muxuu ahaa baxo si sharci daraa ku baxo waa wax caadiyo adduunka ka dhaco. sanadkan waqtigeena ahayd annaguna runtii wixii waajibaad naga saaraa ayaan galnay. imtixaanka way xanuun badneed in lagu celiyo, haddii ay tahay ardadana way ku dhibay ahayd. howlwadeennada iyo maamulka iyo madaxda iyo muxuu ahaa wasaaraddana runtii waxay ku ahayd wax aad iyo aad u xanuun badan oo dhib badan. weliba waxay kusoo toostay waqti ramadaana oo runtii adag. waxaan rabaa inaan muxuu ahaa annaguna waxbaan ka barannay, ardadiina maantay iyagoo faraxsan oo waxay shaqaysteen oo aan la qishin oon muxuu ahaa suuqa laga soo iibsan oo maanta madaxooda kor u taagan yahay ayay maantay natiijadoodii si sahlan ay muxuu ahaa uga fiirsan karaan muxuu ahaa macluumaadka shaashada ku qoran. waxyaalihii laga bartay waxaa ka mid ahaa in dowlad ahaan iyo wasaarad ahaanba aan xifdi karno. markii wax yimaadaan aan muxuu ahaa dadaalkeena labalaabi karno. haddaad sanadihii hore u fiirsid annagoo dib u dhac nagu dhacay haddana waxaan ka soo hormarnay qiyaastii 3 wiig
saddex sitimaan ayaan ka soo hormarnay waqtigii la faafin jiray taa waxay ku timid dadaal iyo howlkarnimo zaa'ida ardaydu waa ka badnaayeen sanadka hore imtixaanka ku celis baa na dhex galay waqti niyad xumo ayaan soo marnay saasay tahay runtii wasaaradda iyo howlwadeenadoodu aaday u dhabar adeegeen wax badanna waa ka baranay waqtigii loogu talagalayna natiijadii waa kasoo hormartay iyadoo nadiifa oo qof walba uu ku qanacsan yahay waxa uu helay wuxuu shaqaystay inay tahay waayahay natiijada imtixaanka iyo arrimaha la xiriira intaas ayaan uga gudbaynaa wasiir waa filaya in dadka ay aada uga dhargeen waxaan rabaa inaan ku weydiiyo shirkii maanta magaalada muqdisho ka furmay ee aada dahfurtay ku saabsanaa tayada tacliinta sare ee dalalka colaadaha kasoo kabanaya oo soomaaliya ay ka mid tahay bal inaad muhiimadda shirkaasi soomaaliya u leeyahay iyo tayeynta tacliinta sare ee soomaaliya sida loo hagaajin karo inaad warbixin naga siiso aad waa mahadsantahay waa runtii arrin wanaagsan waxaa wasaaradda waxbarashada iyo jaamacadda ummadda ay dhaqan gelisay maantay shirweynihii saddexaad waa markii saddexaad ee jaamacadda ummadda ay qabanayso shirweyne noocaasa saldhigiisu yahay in muxuu ahaa macallimiinta iyo baarayaasha cilmiga muxuu ahaa soomaaliyeed guud ahaan meel kastay joogaan kuwa jaamacadaha kala duwan ee wadanka iyo kuwa soomaaliyeed ee jaamacadaha adduunka macallimiinta ka ah iyo khubaraada iyo baarayaasha caalamiga ee daneeya soomaaliya in sanad walbaba ay soo bandhigaan daraasado kala duwan oo ay ku sameeyeen qaybaha kala duwan ee wadanka hadday tahay dhaqaalaha hadday tahay bulshada hadday tahay siyaasadda hadday tahay muxuu ahaa garsoorka daraasooyinka ay ku sameeyeen ayaa lagu soo bandhigaa waa runtii guul weyn jaamacadda iyadoo soo kabashadii ay soo kabatay waqti gaaban laga joogo in ay ku tallaabsatay adduunka ay iskugu yeeri karto intaasoo khubaraha inay isku yimaadaan oo mataqaanaa lagu soo bandhigo daraasadahooda sanadkan wax gaaraya 120 daraasadood ayaa lasoo bandhigay xulid waxaa laga xushay 31 oo tayadooda aada u wanaagsan tahay intaasaa lasoo bandhigayaa waxay iskugu jiraan daraasado la xiriiro mataqaanaa xakameynta iyo hoos u dhigidda fakriga tacliinta muxuu ahaa soomaaliyeed marka ay ka soo kabanayso colaadihii caafimaadka meeshuu maraayo iyo in bulshadu ay muxuu ahaa wada hadal gasho si mataqaanaa looga hadlo nabadda iyo horusocodka wadanka marka daraasadahaas ayaa lagu soo bandhigaya 3 maalin ay qaadanaysaa maanta furitaankii iyo muxuu ahaa daraasadaha qaar lasoo bandhiga ay ahayd waaya wasiir markii saddexaad ayaa shirkan la qabtay si aad noo sheegtay ama aan wada ognahay tayada tacliinta sare ee dalka oo dad badani ay aada u dhaliilaan qaybo badan oo ka mid ah maxaa 3 sano ee shirkan la qabanayo iska bedelay dad badan waxay leeyihiin shirar badan oo la qabto iyo wax badan oo la sheego la muujiyo in qaladaad jiro waa laga soo daalay markan maxaa hortaagan fulin in la guda galo tayadii tacliinta sare ee dalka dib u eegis muuqata lagu sameeyo waa mahadsan tahay laba arrin oo kala duwan waaye cilmi baaristu iyo soo bandhigida cilmi la baaray way ka duwan tahay muxuu ahaa maamulka iyo qaabka siyaasaduhu u socdaan dhaliishoodu waa runtaa dhaliishu way jirtaa muxuu ahaa jaamacado aada u fara badan oo inta badanna lagu eedeeyo inay tayadoodu yar tahay ayaa wadanka ka jiro waa xaqiiqa muxuu ahaa wasaaraddu hadda waxay ku tallaabsatay siyaasad lagu tayeynayo waxbarashada hadday tahay waxbarashada hoose iyo hadday tahay tacliinta sare waxbarashada hoose iyo ta sare meesha ay ka wadaagaan siyaasadda waxaa weeye in la hufo lana toosiyo korna loo qaado tayada waxbarashada hadday tahay midda hoose iyo midda koraba meeshaas isku waxbay ka leeyihiin tacliinta sare hadda waxaa soo gabagabowday daraasad aada u ballaaran iyo qaabeyntii sidii loo qaabeyn lahaa way soo gabagabowday waxaa hadda haddii ilaa iraado bishu intaysan dhammaanin
taabageli doono guddigii tacliinta sare. guddigaas shaqadiisu waxay noqonaysaa dabcan iyagoo adeegsanayo daraasadahaas iyo shuruudo la sameeyey in ay jaamacadaha kala hufaan oo wixii jaamacad ka noqon karana la yiraahdo jaamacad weyn, waxa noqon karana la yiraahdo ma noqon kartid, wixii jaamacad noqon kara hadday dadaalaan la muddeeyo. sidoo kalena barnaamijyada ay baxshaan sidoo kale la daraaseeyo, la fiiriyo, wixii socon kara la socodsiiyo, waxaan socon karin aan ummadda lagu lugoyna la joojiyo. taas shaqadaas wasaaraddu aad ayay mataqaanaa ugu tabaabshaysatay. haddii la yiraahdo sanadka intuusan dhammaaninna haddii eebbe idmo wax badan ka qabsoomi doono. waana shaqo bilowba oo socon doonta muddo dheer. jaamacadda xitaa ku guulaysatay inay jaamacad ahaan u jirto, kormeer joogtaa inay meeshii taagan tahay ayaa la samaynaya. manhajyadooda la fiirinaya, macallimiinta ay hayaana la fiirinaya, agabka iyo qalabka ay hayaan wax ku barayana la fiirinaya, dhaqaalaha ay hayaan ay mataqaana isticmaalayana la fiirinaya. waxaasoo idil ayaa la fiirinaya. ujeedaduna waxa weeye in ardaygu uusan marnaba hungoobin oo markuu jaamacadda ka soo baxo arday qowl lagu aamini karo oo aqoontiisa suuq geyn karo hadday tahay waddan gudihiisa iyo dibaddiisa. marka meeshaas waa meesha aan u soconno. waktiguna waa gaaban yahay. wax badan inaan wakti gaaban qabanaan rabnaa. ilaahay ha nala garab galo, laakiin isbeddel xoog leh ayaa tacliinta sare ku socda. waa tahay isla tacliinta sare su-aal ku saabsan oo dad badan ay aada ishugu hayaan ayaa jirta. dalal waaweyn oo Soomaaliya saaxiib la waxaa jirta wasiir in dhowr jaamacadood kaliya ay aqoonsan yihiin oo ardayga marka uu master u aado 5 ama 6 jaamacadood marka laga tago ay caqabado kala kulmaan. Turkiga oo kala ka mid ah dhowr mar ayaa wasaaradda arintaas la soo gaarsiiyay oo safaaradda Soomaalida iyo wasaaradda arintaas ay ka hadleen. arintaas maxaa macluumaad laga wadaagi kartaa? waa runtii adduunyadu markay aragto waxaa soo jaamacadaha oo wadan la og yahay inuu soo kabsanayo markii la yiraahdo 130 jaamacadood oo wada waraaqi laga wato ay tagaan adduunyadu waa nagu wareeraya. waa run taa way jirtaa. annaguna waxaan rabnaa inaan adduunyada waxay nagu aqoonsan karto nagu ixtiraami karto aan samayno. wadanka ka dhawaajisay dhibaatadaas waa nagu qabaa. maxaa yeelay waa meesha ardadeenu inta badan waxbarasho sii sarreysay ka raadsadaan. marka laakiin xalku wuxuu ku jiraa inaan annagu ismaareyno oo aan jaamacadaheenna aqoonsi siino. waana midda kaliftay in guddigaas la sameeyo. waayahay marka arrimahan imtixaanaadka iyo tacliinta sare laga yimaado waxaa kaloo jirtay arrin kale oo wasaaradda ay dhawaan soo saartay in manhajka dugsiyada laga dhigay ama iskuullada wasaaraddu soo saartay ayna ku amartay in hay'adaha waxbarashada ay dhaqan geliyaan. arrintaas oo cagajiid badan uu ka muuqdo xilliyadii hore. maxay tahay fariintaada arrintaas ku saabsan wasiir? aad iyo aad waa mahadsantahay runtii. waa kaaga mahad celinayaa su-aashaas inay weydiisay. waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah, munaasabna ku ah in la weydiiyo qofka mas-uulka ka ah waxbarashada Soomaaliyeed. manhajka Soomaaliyeed sidaad ka warqabtaan manhajku waa ballaaraa. dugsiyada wadankana qolaba meel ayay wax ka soo qaadatay. waxaa la qiyaasaa inay 47 manhaj oo kala duwan wadanka ay ka shaqaynaysay. waa ilaahay mahadiis waxaan ku guuleysanay in manhajka uu la mideeyo. waxyaala la mideeyo waxa weeye xeendaabka guud ee manhajka Soomaaliyeed waa lagu heshiiyey waana xeendaabna waa loo yeelay. macnaheedu waxay tahay waxa la daraasaynayo carruurteena loo gudbinayo waa la isla qaatay. waxaa kaloo la isla qaatay waxa uu ka koobnaanayo manhajkaas. markii meeshaas la joogo waxaa bilaabatay in buwaagtii wax laga baranayay qoritaankoodii la galo. waxaa maantay aan ku faani karnaa haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed in manhajkeennii fasalka 1 ilaa fasalka 8 buwaagtii laga baranayay soo dhammaadeen.
sanad dugsiyeedkan soo socdo ee 2019 2020 ay dugsi kasta khasab ku tahay in ay baraan caruurta manhajkaas horey waxaan u shaacinay in arrintu sidaa tahay qofkii dhagaha ka furaystana wasaaradda waxbarashada ay tallaabo sharciya oo muuqda ka qaadi karaan marnaba looguma dul qaadan doono iskuulkii ama dalladii isku daydo in caruurta Soomaaliyeed manhaj dowladda Soomaaliyeed aysan raalli ka ahayn ay barto manhajka waxaa loo qoondeeyey in fasalka koowaad ilaa fasalka 8aad sanad dugsiyeedka soo socdo manhajka jiro la isticmaalo waa uga digaynaa fariinteenuna aad ay u caddahay dugsigii iyo hay'addii iyo dalladii aan isticmaalin wasaaraddu waxay ka qaadaysaa tilaabaad bugaagtu diyaaray noqon doonaan haddii eebbe idmo waqtiga sanad dugsiyeedku bilaabanayo waxaan cid walba ka codsanaynaa hay-adaha la shaqeeya waxbarashada dhammaantood in arrintaas la isku wada garab istaago lana hirgeliyo sida ummadda Soomaaliyeed caruurtooda ay mugdiga uga baxaan waa tahay aad baa u mahadsan tahay kaasina waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo caawa martiina ugu ahaa barnaamijka Raadraac TV qaranka Soomaaliyeed sida aad daawaneyseen oo bilowga barnaamijkan aan idinku soo gudbinay wasiirka waxa uu ku dhawaaqay natiijada imtixaanaadkii mideysnaa ee dawladda ay qaaday sanadkan oo 10 arday ugu horeeyayna magacyadooda uu ku dhawaaqay sidoo kale natiijada aad ka heli kartaan ciwaanka idinkaga muuqda shaashada ee wasaaradda waxbarashada sidoo kale website-yada Sona iyo Radio Muqdisho iyo SNTV wasaaradda warfaafinta ayaa iyagana toos halkaas leedinku soo bandhigi doona ardaydu ay ka heli doonaan guud ahaan barnaamijka inta ayaan ku soo gabagabeynayaa daawadayaal waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa wasiirka waxbarashada wasiir Cabdullaahi Goodax Barre aad ugu mahadsantahay inaan nagala soo qayb gashay barnaamijka dadkana la wadaagto warbixino muhiim ah tan kulantay dambe waxaan idin leenahay daawadayaal sidaas iyo nabadgelyo